ninka sawirada gabdhahan ka qaaday ayaa waxaa la geeyay xabsi waxaana la filayaa in lagu xukumo 7 bilood ama 8 bilood waliba in la ganaaxo ganaax lacageed in la ganaaxo soo dhawaada ninka booliska ciidanka booliska ee watay dhalinyaradii muxuu ahaayay soo xiriirsa gabdhahan ayaa waxa uu sameeyay gabdhaha marka uu soo qabtay waxa uu kala qaybiyay laba qaybood markuu u kala qaybiyay qayb sawirro wuxuu kaga qaaday si ayagoo sheenaynaya ama photoshop joogo oo saas kale iska xarakeenaya gang whatsapp ku hayaan ma fahmaysaa ayuu sawirro ka qaaday kuwana waxa uu ka qaaday ayaga oo amoodid mugdi in lagu dharbaaxay mise macnaha wax cabsiya la tusay oo macnaha qarqarsan mise naxsan ayuu ka qaaday isku dhaxdaasan xitaa ma taqaana sawirka xitaa kaamirada wuxuu kaga istaagay xitaa meel fog ayuu kaga istaagay oo zoom intuu soo galiyo bac ku siiyay sawir kala haleysanbo waxaaba moodaaba kuwa qaarkood macnaha camba labada gees laga dhuuqay intaameysa soo sawirada uga qaaday xaasanada meesha ka waday ninka marka la soo qabtay taliyaha ciidanka booliska watay marka la soo qabtay xalay toole ee xabsiga la keenay ayaa la wareystay saaka waxaana la yiri maxaa kugu sababay in aad gabdhaha u kala yaxaatid qaarna aad ka qaadid sawir 2004 kuwana aad ka qaadid sawir 2024 maxaa kugu kala sababta maxay tahay sheeg waxa uu yiri aniga ma rabin dagaal iyo buuq iyo qararac midna ma aanan rabin ina kuwana ceebeeyo kuwana sharaftooda kor u qaado ma aanan rabin only clear waxa aan rabay attention ayaan rabay in la dhaho taliye ciidanka booliska ayaa sawiradan qaaday is not easy commenting in lagu soo qoro ayuu roobas taliyaha macnaha social media la socdaaba account TikTok ayuu leeyahay taliyaha ciidanka booliska account TikTok ayuu leeyahay laakiin maxay kuugu taalaa haatan asaga xabsi ayaa la geeyay waxa la yiri taasna ma noqonayso ayaa la yiri wax macnaha qiila ma noqonayso waxay noqonayso macnaha excuse ma noqonayso waxa lagu geenayaa heer maxkamadeed waana lagu baarayaa waxyaabo badan hore oo u sameysay gabdha qaarkood ayaa mugdi ku dharbaaxday oo cabsi aad ku beertay oo filterka ay ka qaaday ee macnaha muxuu ahaayay toole aad ka dhigtay macnaha muxuu ahaayay taageerayaashoodii aad macnaha qalbada jibisay kuwana taageerayaashooda ayaa kor u qaaday oo hamiga ayaa u dhistay waxaas wax la iska yeelay ma hadda odaygana xabsi ayuu ku jiraa waxaana la filayaa ganaax lacageed in la ganaaxo حبسة 7 أم 8 بلود أهل أنو قادم دور وايد سلامة كاسنا أبديت كوسبا باي